toddobaadyadii u dambeeyay waxaa sii xoogaysanaya aragtida ka dhan ah anteenooyinka ku shaqeeya hannaanka 5G-ga ee xaraaradda siiya telefoonnada gacanta kuwaasoo la sheegay inay iyagu sabab u yihiin fiditaanka coronavirus. xiriirka ka dhexeeya anteenooyinka 5G iyo COVID-19 waxaa faafiyey saynisyahanno iyo dhakhaatiir daafaha dunidiisa ku kala nool. sida ku cad falanqayn iyo warbixino uu sameeyey wargeyska New York Times, waxaa jira ilaa iyo 500 oo Facebook group oo haysta in ka badan 2 milyan oo qof iyo 84 Instagram account kuwaas oo fariimo iyo muuqaallo joogto ah arrintan ka faafinaya muddooyinkii u dambeeyey, iyadoo ay kuwaasi dadka ay farayaan inay gubaan anteenooyinka 5G. aragtidan ayaa markiiba dunida saamayn ku yeelatay, waxaana ka dhashay cawaaqib xun. ilaa iyo 100 shil ayaa arrintan ka dhashay. waxaa jira weeraro badan oo lagu qaaday khubarada ka shaqeeya shabakadaha 5G dalka Britain, sida uu qoray wargeyska New York Times. waxaa kale oo la soo sheegayaa ilaa iyo 30 kiis oo jajabin ah iyo ilaa iyo 80 kiis oo weeraro lagula kacay shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha ay anteenooyinkani ku yaalaan. warkani waa mid maalayacni kii ugu xumaa ee abid la maqlo, ayuu yidhi xildhibaan Julian, kaasoo si weyn uga soo horjeeda faafinta xogahan uu been abuurka ku tilmaamay isagoo la hadliyey wargeyska New York Times oo uu sheegay in arrimahaasi gebi ahaanba aanay wax ka jirin. kaabayaasha 5G waxaa haatan caalamka ugu haysta shirkadaha China, taasoo uu dagaal kala dhexeeyo Maraykanka oo xitaa ku daray liiska madow isagoo basaasnimo ku eedeeyey. Megahertz frequencies, etc. So the 5G frequency is a very high frequency, very high frequency. It is just below the classification of a weapon, and I'll tell you why.